fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Hiba Maxamed Hiba Nuura ayaa sheegtay inay go'aansatay in wajiga alle dartii ay uga harto fanka iyo musica. Hiba Nuura waxa ay sheegtay in muddo ay ku soo talamaysay sidii ay u joojin lahayd musica oo ay sheegtay inaanay ahayn wax wanaagsan sida culimadu ay sheegeen. Hiba Maxamed ayaan goor dhaway telefoonka magaalada Minneapolis oo ay degan tahay kula xiriiray oo aan ka waraystay go'aankan waxaana marka hore weydiiyay waxa ku dhaliyay. farxaana waa aad u mahadsan tahay arrintan horta muddo igu soo jirtay mar kale iguma soo boodin muddo ayaa maaragtay aan waxoogaa ka fakaray wax aad u wanaagsan waxa ila noqotay maadaama culimadii isku raacday inuu yahay fanku wax fiican oo suugaantu wax fiican tahay laakiin muusiga marka lagu daro aanay fiicnayn marka aniguna waxaan uga fakaray inaan maaragtay wixii aan fiicnayn aan xagga ilaahay raalli lagaga ahayn berigii aan fanka galay waan yaraa intii aan dembigaygaba la qorin bay ahayd intii dambana dee way soo jiitmaysayo maalin qura go-aan lama gaadheen markii ilaahay qadaro unbaa lagu dhawaaqaa markaa saas iga soo gooday marka go'aanku muddaad ku talamaysay laakiin culimadiiba ayaa kugu sii dhiirigeliyey aad iyo aad diinteennaba sidaa odhanaysa ilaa aabbahay laga bilaabo ayaa muusigu ma fiicna in lagu heeso aabbahay bay igu dhiirin jiray laakiin dhalinyaro iska waalane waxaan odhan jiray iska dhaaf heesta macaan haddana qaad haddana adigu way socotay hadda waxaan gaadhay gobogobadii inaanan muusig ku heesin laakiin wixii suugaana ee wadankayga wuxu taraya ee diintayda wuxu taraya ee dadkayga wuxu taraya waan odhanayaa waanan alifaa kuwa la alifay kalena waan qaadi karaa laakiin kuma heesayo marka micnaheedu inaad kala saartaan wanaagsanaan lahayd Hibo muusigii baad meesha ka saartay laakiin heestii caadiga ahayd jacaylka ahayd ama heesahaagii la yaqaanay caanka ahaa iyagoo sidoodii luuqdoodii waad qaadi kartaa maya iyagoo suugaan un baan odhan karaa markaa suugaantu maxay noqonaysaa iyadoo dhiirigelina oo aan jacaylkii ku jirin noo fasir iyagoo dhiirigelina oon jacaylka ku jirin haye dad badan oo taageerayaashaadii waxa laga yaabaa marka inay si kala u qaataan Hibo markii masrixii fanka laga waayo oo ay ku tabi doonaan waxba ma kumayaal kala joogo oo kaalintayda buuxinaya qof kastabana anigu waxaan jeclaan lahaa in la iska daayo muusikada in lagu heeso laakiin dadkii yeeli maayaan marka ka waran go'aankan muddaad ku talamaysay laakiin Hibo dadka qaarkii inay si kala u fahmaan baa laga yaabaa oo yiraahdaan dee fankii Soomaaliya burburkii ku yimid intii dagaalada wadankii laga soo qaxay markaad eegto dhaqdhaqaaq ma laha marka haddii aanay wax soo saar iyo alifaad cusub aanay jirin Hibo sidaasay uga xuubsiibatay oo uga luga baxday maahe sidaa inay u dhigaan qaarkood maya u dhigi maayaan because mar walba haddii uu jiro qof dhaqaale ku soo galo dadka ugu fiican baan ku jiraa cid kasta oo maaragtay aniga fanka inaan kala qayb galo ii doorataana kaalinta u sarraysa ii joojisaa maaha sidaa waxa weeyaan wejiga ilaahay baan uga hadhay anugu in ilaahay intii horena iga xafiyo marka intan dambe hadda aad ogoshahay dhiirigelinta bal tusaale naga sii maxay noqon doontaa oo haddaad wax alifayso ama aad qaadayso muusiga iyadoo ka reeban ah waxaan dhiirigelinayaa waxa weeyaan waxyaalaha wadaniga ah marar badan oo kale maanta waa waxaan ka cudur daaranayaa laba beri oo aniga xafladii ii sameeyey ummadda Soomaalidu igu ducaynaysay ayaan 5 qaaradood la hadlayay telefoon ilaa aan deganahay waa codkaygu daalan yahay mar kale intaad igu soo noqoto inaan suugaanta sida aan jecelahay u sheego oo dhan noocaasaan jecelahay inaan u sheego waan gartay waan ka xumahay adoo daalan inaan kula hadlayo laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Hibo muddo intee laag baad ku soo jirtay fanka anigu caruuraan bilaabay 1967 bilaabay waqtigaa fanka aad ku soo jirtay maxaa kuugu fiicnaa ood ka xusi kartaa wallaahi marxalado badan oo fiican baan ka xusi karaa dhiirigelinta wadankayga oon goobo badan ka dhiirigeliyey oo aan shacbiga kaga farxiyey sida ama kaga qiiraysiiyey ayaan aad u jecelahay goobahaasaan aad u jecelahay hadalaad ku soo gunaanadi lahayd ugu dambayntii Hibo Maxamed hadalkaan ku soo gunaanadaya waxa weeye anigu inaanan dhiirinaynin heesayga
in la saaro in lagu raaxaysto iyo in la qaadatoona aniguna aan iska daayay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Hiba Maxamed